halka qodob waxa weeye waxa la ii sheegay inay jiraan niman qolo fanaaniin oo iswato wiilal iyo gabdho oo iclaamaad magaalada ka wada oo xaflad ka qabanaya meelaha maxaa la yiraahdaa bangani maxay dhahay bangani hol wax soo kala oo muxuu ahay magaalada ku qaybinay marka waxaan dhihi lahaa dadkaas hal iska jiro iyo meeshaas yaan la tagin waxaasi adduunyada nin joogow maxaa aragti ku laaban haddaba arrintan ayaa waxay noqotay mid social media saameyn baan ku lahayd barihii u dambeysayba balse arrintan ayaa imika noqotay mid odaha sii koosatay haddaba ugu dambeyntii Sheekh Ubal oo ka mid ah sheekhada Soomaaliyeed ee xilligan jooga kuwa loogu jecel yahay dhanka social media uguna saameynta badan ahna sheekhan cidna ka hamran cidna ka haybadaysan ayaa ugu dambeyntii afka furtay isagoo ka hadlay arrintii Ismaaciil Aarke ee ahayd showga iyo sidoo kale fanaaniinta lagu kala magacaabo Axmed Aarshe iyo fanaanada kale ee lagu magacaabo Nashman Nashaad kuwaasi oo ku sugnaa magaalada Muqdisho si ay u qabtaan showga ciidka oo ku beegan habeen dambe oo Jimco ah haddaba arrinta dhacday ayaa waxay ahayd waxa laba cisho hore ka hor dhimatay saaxiibadoodii ahay Muuniita Xidigta taasi oo ahayd hoobalad caana bulshada Soomaaliyeed ayaa waxay u soo jeediyeen intooda badan in ay baajiyaan labada show sidoo kale bulshada ayaa waxay u jeedisay in aanay baajin balse ay dib u dhigaan haddii xitaa ay baajin karayaanna ay tahayba weji balse ugu dambeynta arrintaasi ayaa waxaa noqon mid aan baaqan saaxiibayaal warbixinta intaan idin bilaabin hadday tahay markii ugu horeysay aad soo boqoto kanaalkeena sirta xogaha waxaanu kaa codsanaynaa inaad kanaalka subscribe saarto si aan u helo saaxiibo sida adigoo kale oo fiican qaybta hoose ee commentiga nagu reeb wixii fakar iyo faalo aad hayso sidoo kale muuqaalka sii sheergaree daawade meel kasta aad ka isticmaasho baraha bulshada kambareelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya